Assalaamu calaykum caruurey Rabadaan mubaarak caruurey maanta waxaynu ka sheekaynaynaa ubax yar way soo kacday habeenkii saqbarhkii waxay aragtay hooyadeed iyo aabaheed oo cunto cunaya ubax yar way yaabtay caruurey waxay isweydiisay manaaha waqtigii cashada waa la soo dhaafay welina waagii muu baryin oo weli waa habeen maxay cunayaan talow hooyo iyo aabbo caruurey markii waagii baryey ubax hooyadeed quraacdii ayay u diyaarisay miiskii ayay u saartay ubaxna quraacdeedii way cuntay laakiin way yaaban tahay waayo hooyadeed ama aabaheed qof soo ag fadhiistay oo isna quraacanaya ma jiro caruurey casarkii markii la gaadhay gurigii waxa imi ayeydii iyo awowgii ayaa imi caruurtii dhammaan fadhiga ayaa la fadhiistay ubaxna iyadoo faraxsan waxay tiri waa maalin aad u qurux badan caruurey ayeydii iyo awowgii iyo labadii waalidee ubax madbikii ayay galeen waxay rabeen inay diyaariyaan cunto ubaxna way faraxsan tahay waxay rabtaa inay caawiso oy cuntada la samayso laakiin caruurey ubax way yaaban tahay waxay isleedahay waa maxay maanta xilli hore ayaa cunto la samaynayaa caruurey cuntadii markii la diyaariyey miiskii ayaa la soo saaray laakiin qofna cuntadii ma cunin waxa la sugayaa inta laga eedaamayo caruurey ubax aad ayay u yaaban tahay waxay isweydiinaysaa maanta waa maxay maalintan cusubi caruurey markii la afuray ubax aabaheed iyo awowgeed iyo ayeydeed masaajidkii ayay tegeen si ay u soo tukadaan markii salaadii laga soo laabtay ee la seexanayay ubax aabaheed ayay weydiisay waxay tiri maanta waa maalin ka duwan maalimihii hore waxaynaan samayn jirin markii hore ayaynu maanta samaynay maxaa dhacay maanta ubax aabaheed wuxuu u sheegay maanta waxa bilaabmatay bishii rabadaan bisha rabadaanna habeenkii baanu wax cunaynaa nooma bannaana maalintii inaanu wax cunno biyana lama cabbaayo maalintii oo dhan waa la soomanaanayaa ilaa ay cadceedu ka dhacdo oo maqrib laga eedaamo bisha rabadaan waxaynu u soomaynaa inagoo ilaahay adeecayna ilaahay ayaana amray inaynu soonno bisha rabadaan faa'iidooyinka soonkana waxaa ka mid ah inaannu xasuusanno dadka masaakiinta ah inagoo ilaahayna u mahadcelinayna caruurey ubax aabaheed waxay ku tiri aniguna waan soomayaa beri idinka ayaan idinla soomayaa aabaheedna wuxuu ku yidhi dhib ma laha waad soomaysaa beri waa inaad isku daydaa inaad soomi karto iyo in kale ubaxna way ku faraxday